السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودياشا قيمها هي قدرين تمدنا وكسور دوادا برامج كهذا الحين تضبط كوات كذا وتام تلفزيون سم نيوز تي في استوديو سم مقالة مقدشو برامج كنا واحد الناس سعودية هل كنا ينكسو صار أنا ومحمد عبد العثمان فرداري هذا ما أنت برامج كواحد مرتين موجوه أكس وزير هراء وزير حيان كوزارة مالية هراء جبلان علي محمد حاشي هذا مشرح أتاجن حلك هجان كجبلان وجورين وزير كسرو سمنيوز تي في استوديو مقالة مقدشو. وما سنت هذه تي في جاكوب وما سنتهين أنا ورا ديار بن هذا كواهنا كعلى هذلو. بعد ما سنتهاي مشرح واحد أتاجن تاي هذا قبشة حلك هجان كجبلان بل intaynan u guda galin doorashooyinka iyo hababka ay u dhacayaan iyo hadda sida loo wajihi doono bal ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa bal waxyaabaha kugu kalifay ka cali ahaan inaad isu sharaxdo xilka madaxweynaha Jubbaland. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. رون ahaantii horta nin kasta oo reer Jubbaland ama nin kasta oo Soomaaliya ama nin kasta oo mataqaanay yani xil doonayay xaq buu u leeyahay inuu is sharaxo haduusan is sharaxin oo is gadin oo dadka uusan mataqaanay iska gadin waxa weeye ma uu noqon karayo xilka ma qaban karayo sidaas darteed anigu musharax baan ahay musharax madaxweyne for Jubbaland baan ahay sababta ay u kaliftayna way iska caddahay horta waxa ragga kala wada un baan anigana ay wada laakiin waxa ay dheer anigu Jubbaland waxbaan ka soo dhisay ilaa ay xad ilaa aan mataqaanay sanadkii 2016 aan soo gaaro kolkii laga bilaabo 2013 ilaa ay waqtigaas aan ka shaqeynayay arrimo dhacay oo ka dhacay Jubbaland oo aniga iga hor yimid ba dartood ayaan mataqaanay aan shaqada uga tagay ayaa jiray kuwaas anoo tixraacaya iyo dhibkii iyo mashaakilkii aan markaas aan tirsanayay ama aan ka tirsanayay dadka xukunka markaa haya ayaa igu kalifay waxa kale oo igu kalifay Jubbaland direction bay lahayd directionkii ay lahayd ayay ka leexatay markii ay ka leexatay waxa dhacday in ay directionka lagu soo cesho wayna dhici weyday taas ayaa haddana waxay keentay inaan haddana mataqaanay aan iraahdo tan ma shaqeynayso dadka reer Jubbalandna wax badan baan u soo qabtay run ahaantii waxaas aan u soo qabtay ayaan ugu abaal sheeganayaa taasna waxa weeye ayana waa qayb kale oo taagan marka way badan yihiin cawaamisha igu kaliftay inaan musharax madaxweyne noqdo waan gartay aad baad mahadsan tahay waxaad ahaan jirtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Jubbaland golihii xukuumadda markaa ama cabinetkii ugu horeeyay la dhisayna waa ayaad kamid ahayd bal maxaa horumarin aad is leedahay waad ka samaysay intii aad ahayd wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda aad ahayd Jubbaland run ahaantii meesha iyadoo iska bannaan baan tagay 2013kii waa xilka ayaan mataqaan Axmed Maxamed Islaan ku wareejinay annagoo markaas isle waa amaano amaanadii baan u dhiibnay dabadeedna xogay takrifalaha ba iska dhici doono laakiin waxa jira meel cidla oo isaga dambeeyeen warloor isaga dambeeyeen oo shabaab uga dambeeyay oo dhibaataysan oo boorku ka kacayaan meesha tagay run ahaantii waxa aan sameeyay wax la yiraahdo bal in nolosha ay ku soo noqoto systemka dawladnimo in nolosha ku soo noqoto wixii ilaahay markaas igu waafajiyay oo ay ka mid yihiin madaxtooyadii haddaba lagu shaqeeyo bangigii dhexe iyo fasilitiya kala fara badan aan mataqaanay anigu aan mas'uul ka ahaa ama ilaahay igu soo aadiyay baa jiray run ahaantii waan wax badan baa ka qabtay waxaasoo dhanba ka daran systemka maaliyadeed ee meesha ka jira aniga ayaa sheegta oo salka u dhigay asaga oo mataqaanaa fariisan waayay waan ku faanaa run ahaantii
marka sidaas ayaan mataqaanaa waxyaalo badan baan kasoo qabtay xaqiiqatan ha waan gartay aad baad mahadsan tahay musharax madaxweyne cali maxamed xaashi bal doorasha hadda Jubbaland looga diyaar garoobayaa maadaama doorashada looga diyaar garoobayo adna aad tahay musharax madaxweyne sidee baad isleedahay doorasho Jubbaland way uga dhici kartaa maadaama Axmed Madoobana inta badan idinka hadda mucaaradkii aad ku eedeysaan inuu yahay nin keligii talisa ama isagu keligii hawshii wata oo diyaar garoobi bal waa yahay qaab nooceeyay uga dhici kartaa baad isleedahay horta taas su'aashaas waa su'aal culus weeye dadkoo dhanna way ka wada hadlaan wixii horta ilaahay ka garta un baa meesha ka dhici doona wax kale ziyaada meesha kama dhici doonaan laakiin waxaan isleeyahay haddii doorasho xaq ah hadday timaado oo xalaal ah hadday timaado meesha waxa weeye ninka musharaxa wuu samri oo mataqaanaa hadduu waayo wuu samri hadduu helana wuu ku samri balse caqabaduhu way jiraan Axmed Maxamed Islaan uma malaynayo anigu hadda halkan aan joogo saacadan la joogo in uu raali ka noqonayo doorasho xalaal inay meeshaas ka dhacdo inuu ka noqonayo aniga ilama aha waayo waxa la yiraahdaa ruwaaga la tagbartay laga dhig waa ku ceeb taas ayaa waxay keenaysaa in laba doorasho hore uu soo galay labadii doorasho hore miduna waxay ahayd mid mataqaanaa dee hoggaanka tii loogu dhiibay bay ahayd oo Jubbaland oo dhan baaba aad u danaynaysay marka asaga oo la lahaa waxyaalo badan buu kaga fiican yahay musharaxiinta kale tii dambana dee xoog buu kula wareegay ayana oo si xoog ah buu kula wareego yani doorta ah buu kula wareegay labadiiba haddii la isugu daray waxay soo gaarsiisay in labadiiba waxba ku qaban waayey oo wax ku bedeli waayey oo mataqaanaa ummadiina ay ku baaba'day waqtigiina kaga lumay 7 years oo aan ahayn inaba ha yaraatay aan caadi ahayn baa wadanka soo martay oo dhaqaalihii hoos u dhacay oo dekadii burburtay oo waxba yani mataqaanaa laga qaban waayey oo qofkii imaan lahaa oo isaga cararay oo dadkii ganacsatada ah ka carareen oo maalin walba uu leeyahay sidatan iyo sidatan justification intuu sameeyo uu leeyahay canshuur baan qaadaya guryaha xataa albaabada hadda inuu kala baxo ayaa la sheegay anigu ma joogo waa warkay soo gaaray weey marka de waxaan isleeyahay Axmed Maxamed Islaan asagoo waxaas u jooda iyo dadkaas iyo ummadaas uu meeshaas yarta 14 kilomitir ku celcelinayo in inta la yimaado la yiraahdo war barwaaqada tan ka dhex baxo de horumar baa la sameynaya inta la yiraahdo uu ka dhex baxo uma cunamayso marnaba uma cunamayso waxa marka meeshaas ka riixi kara waxa weeye waa dawladda federaalka ah igad iyo mataqaanay amisom iyo wixii ilaahay maarta u soo diro unba meesha ka riixi kara laakiin asaga ahaan ismalihi doorasho xal oo xor ah oo xalaal ah buu ogolaanaya anigu ismalihi marnaba ismalihi taa iyada ah waan gartay musharax waxaad sheegtay in caqabadahaasi ay jiraan waayahay caqabadahan aad sharaxday waa sida aad sheegtay way jiraan laakiin inkastoo dadka qaar ay leeyihiin sidaa uma sii badno balse aan intaa kaga gudubno hadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre safar ayuu ku joogaa wuxuu wada tashiyo la sameynaya Axmed Madoobe xiriirka federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ma fiicnayn madmadow badan baa muddooyinka ugu dambeeyay ku jira arinta madmadowga miyaa la xaliyay baad isleedahay anigu waxaan leeyahay arinta madmadowga ah mana xalismin inay xalismaysana rajo badan anigu kama qabo qof walba de kolba maskaxdiisu si unbay u taabataa dawladda federaalka ah waajibkeedu waxaa weeye inay maamul goboleedyada ay la taliso facilitate garayso wax u qabato ogaato sida doorashada uga dhacayso sida xaaladooda ay yihiin wax cabashada kulli waxaas oo dhan ayada ayaa mas'uul ka ah run ahaantiina marka inta mas'uul ka tahay hadday hadda tagaan oo ugu dambeyntii ah oo bas kaba soo daaheen oo ay yiraahdaan Axmed waxaan ogolaysiinaynaa ama aanu u sheegaynaa dawladda federaalka inay ku yeelato meeshaan Axmed ma ogola mana ogolaan doono hadduu ogolaadana waa nasiib waa u sacbinaynaa arinta ayada marka dawladdu niyadeedu way fiicanta balse caqabada hortaala yaa waxay tahay
axmed maxamed islaan kursiga kan inuu soo miiska soo saaro oo yiraahdo ha loo tartamo ma ogolaanahayaa wey. taas marka sidaas darteed anigu waxaan leeyahay meeshaas prime ministerka tegitaanka uu tegay waxaa weeyaan caana in looga lisaayo ilama aha, sidaasaan anigu yaan qabaa. waan gartay bal ergada soo dooran doonta baarlamaankii oo isaga hadda doorashadiisu ugu horeyn doonta ee Jubbaland sidee loo wajihi karaa baa isleedahay hadday arrimaha iyo caqabadahaasi jiraan? way caddahay dee kolley haddii sida sharciga la raaco waa in salaadiintu ay soo xulato baarlamaanka, nin walba ninkii uu soo doortay inuu miiska keeno isagoo kaarkiisii wato yidhaha anigu kanaan wadaa, reerkooda iyo tolkiisna uu kula soo heshiiyo, dabadeedna saa lagu qoro. laakiin hadda siyaalaha aan dhagaha ka maqlahayo 3 nin baa la keenayaa, guddi uu dhistay axmed maxamed islaan uu dhistay oo uu yiri waxaa tihiin doorasho yuu xeer u samaynahayaa oo uu leeyahay 3 qof midkii guddigaasi uu ka qaato baa yaa shaqayn doona oo la qaadanaya. taasuna dee waaba arkaysaa dee sida ay u dhigmayso, cid laga qarin karaa iyo cid loosii hadda faahfaahin usii baahan ma jirto. taasuna waa midda uu ku doonahayo inuu ku juujuubo musharaxiinta oo uu ku juujuubo dadka meesha jooga odayaasha kullu inuu wax yani mataqaanaa ay ku marsado uu doonahayo wey. waxaa kaloo jira ammaankii baan anigu la wareegay buu yidhi, caawa haddii ammaanka intuu la wareego oo asagu ammaanka hayo aniga waxay soo gaaraan ya ma u dhihi karo anaa mas-uuliyadaas le ma u dhihi karo oo ma qaadi karo, nafsadayda ma qaadi karo. anoon ka yani rajo xumayn dhalinyarta meesha joogta, haddana waxaa weeye qof walba inuu lahaado cidda waardiyeynaysa inuu lahaado baan anigu taagna, taasayna wax ku dhici karaan. waxaa kaloo jira wax la yidhaha excess ma laha, kolkii qof axmed kuu soo diray uu ku ag taagan yahay cid kuu imaanaysa iyo cid mataqaanaa aad ku fidin karto mataqana aaraadaada ma jirto. waa gartay laakiin isagu maamulkii hadduu yahay oo hadda weli uu saaran yahay waajibaadkii iyo amnigiini so inuu sidaas sameeyo sax kuma aha isagu waxa uu sax ku yahay in uu kor naga ilaaliyo ammaanka guud inuu ilaaliyo, laakiin qof musharaxa oo waardiyihiisii wata inuu yidhahdo ma arki karo oo askarta uu mataqaanaa asaga kor naga ilaalinaysa oo mataqaanaa dee ammaanka haysata aan weydiisano war noo soo daaya dadka ama dadku waa nala shirahayaana xaggaas u leexda midna aan warsano may aha. waa inaan xor u noqonnaa in aan keensano dhalinyaro annaga noo khaasa oo mataqaana arrimaha naga noo kala dabara. liskuma hayo ammaankii guud, waan u ogolnahay inuu ammaanka guud hayo, laakiin hoos ahaantii waa inuu ogolaadaa. waan gartay sideed kula muuqataa arrinta hadda wararka ugu dambeeyay ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan sida ay ilo ku dhadhow madaxtooyada Jubbaland iyo safarka ra'iisul wasaaraha ay ka soo warinayaan ba waxay sheegayaan in wada hadallo uu socdo dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. wada hadallada waxa diiradda lagu saarayaa heshiiskii hore ee Addis Ababa ahaa in lagu wareejiyo dekeda iyo airportka dowladda dhexe. waaya arrintan dadka qaar waxay u dhigayaan in Axmed Madoobe uu ogolaanayo in labada lagu wareejiyo dekeda iyo airportkii, isagana dowladdu ay 4 sano maaragtay soo sharaxdo. haddii bal arrintaasi ay dhacdo maxaad u marayn? soo sharaxda ma waxaad ka wadaa inay ugu bedelaan inuu asagoo kusoo noqdo xukunka? taas waa fidno dowladda horisay weeye. taas hadday dhacdo oo lagula heshiiyo waa fidno iyo dib u dhac iyo dhibaato ay ku samaysay weye reer Jubbaland iyo dambi ay ka gashay. dekedaana deked la wareejinayo maanta maxaa laga wareejinaya? waa dekeda Ibera. maraakiib baa la keenay aan cid leh iyo cid yani xukunta jirin. maraakiibtu asaysinta ugu dhufanaysa biyihii baa waxay kaga soo dhacayaan meel fog, meel kalena way uga baxayaan. waan ogahay taas iyada dhalin baa ka shaqaysa meesha, deked ma jirto. marka haddiiba lagu wareejiyo waa dhismo iyo magaciisi oo dib u dhacun ku dhacay weeye Kismaayo, laakiin dee waa wax mataqaanaayay is okay haddii lagu wareejiyo dee waa xaq bay dowladda u leedahay inay labadaas haysato. aad iyo aad dowladda dhexe laakiin waxay leedahay waxa iyadu rabtaa iyaduna sida ila ku dhadhow ay sheegayaan in ay dowladda dhexe rabto labada inay la wareegto.
أحمد مدوبنا اللي يراهدو ماشى بناء ها ماشى بناء ها يجنا وورك لا يجنا سدا شيء وإلى كلا دودوان أو كإيمان هذا وضع هذا الله أصعد مدحونها جبلان إيو رئيس وزراء ونحن horta waxaa weeye arrin guud baa jirta sideeda hore ma ganacsi dowladda dhexe iyo Axmed ka dhexeeya waxa lagu wadayaa mise waxa lagu wadayaa sida arrintu tahay sida arrintu tahay waxaa weeye dekada iyo aeroboortka dowladda dhexe ayaa xaq u leh inay maamusho ama goobjoog ku yeelato wixii ka soo baxay wixii magaciisa ay wax oo dhan marka taas in looga iibsho asaga wax uu helahayo dee waaba wax kale oo aanan ogeyn weeye ya wax kale oo aanan ka warqabin weeye kamana jawaab karno ruuxantii waa gartay horta arrintan iyada maxaa keenay in dekad la wareejiyo iyo in la wareejiyo airport Jubbaland arrimeeda markii la taagan yahay maxaa inta badan dowladda dhexe ay focuska u saartaa inay labada la wareegto waxaa jira maamulo kale oo iyaguna dekada leh airport leh dowladdu ma tiraahdo waan la wareegaynaa laakiin bal tan Jubbaland maxay uga duwan tahay arrintaas ma sha Allah waa hadal wanaagsan way horta Jubbaland albaabkeeda xiran anu saan isleeyahay albaabkeedu waa xiran yahay qof bay u afduubanta qofkaasuna ma taqaanaay qof furfuran oo dowladii la shaqeynayo oo wax walba tusay dhahaya shalayto sidaan sheekada ku hayo wasaaradda maaliyadda la tagay oo prime minister ku tagay hal shiid oo dad lagu beegareeyay baa la waayay hal shiid oo la yiri mushaarkii hebel waka yaa la waayay anigu markaan joogay ma ayna jirin waxaas waa waxun waxa hooyo hidun baan isaga wadna run ahaantii marka dowladdu arrintan haddaan u soo noqdo hadda aad tiri kuwa kale lama faragelinayo maamul goboleedyo lama faragelin iyada khaas kaga dhig in la yiraahdo dekedeedii waa la wareegayaa airportkeedii la wareegida horta anigu uma haysto ciidamo inay keensanayaan bal u fiirso hadalku moogta wuu kala yahay dowladdu waxa weeye garaangal bay ku yeelanaysaa oo canshuuraha la qaadayo bay wax ka ogaanaysaa laakiin in ayadu inta soo istaagto dekada anaga fadhinaha noo soo gelina meesha ma taalo cid alla cidii ku guuleysata inay tusto dowladda dhexe balance sheetkeeda tustana waxa weeye dee waba kuwaas مثلا hadda Somaliland oo kale balance sheet bay leedahay Puntland balance sheet bay leedahay waa laga warqabaa waxa ay mataqaanay meesha ka socdo waa laga warqabaa yaa ka warqabayana waxa ka warqaba dowladdu galaangal bay la leeyihiin reer Puntland ay ku tusaan waxa ayaga mataqaana income-kooda iyo outcome-kooda labadaba waa dowladda dhexe sax marka taas halkaas inaga dhig midaan kale uma malaynayo dowladdu galaangal bay u yeelanaysaa Puntland inta la yiri uma yeelan kartaan in la yiri aniga arrintaas ayada ma hayo laakiin halkan way jirtaa Jubbaland waa jirtaa dowladdu waa ka indhalaadahay waxba kama oga waxa dhacaya waxa soo dhacaya lacag malaayiin baad imaanaysa ma soo marayso waxa la yiraahdo account-kii maaliyadda ma soo marayso waxa soo dhacay dowladna kama warqato balance sheet-na ma waan gartay bal علي محمد حاشيو واحد soo ahayd wasiir ku xigeenka maaliyadda bal budgetka Jubbaland inta badan u yimaada halkee buu idinka soo gali jiray run ahaantii budgetku wuxuu nooga imaan jiray dekada iyo airportka iyo canshuuraha biriga saddexaas meelood iyo wixii dowladdu ku kabto dowladda dhexe ay ku kabto inahaas nooga imaan jiray anigu waqtigaan joogay dowladda dhexe waxbay kabi jirtay saddexaas meeloodna waxbaa naga soo gali jiray waagaasna caradu sida tan ma ahayn xogay buumay bay ahayd oo iska fiicnayd oo igad iyo magaciisi qolayo badan baa na saboortay Dubai iyo waxbaa na saboortay gareyn jiray marka meelahaas ka soo galgalaysaa waan gartay inta aan kaga soo gudubno waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka Som News TV studio magaalada Muqdisho waxaana ku guda jirnaa barnaamijka hadalaynta toddobaadka oo maanta martina uu yahay musharax madaxweyne Cali Maxamed Xaashi horeyna u soo ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland
wasiir cali bal haddaynu haddana intaa kaga gudubno bal arrimahan Jubbaland iyo markii loo eego dawladda dhexe maaragtay aad iskuma ficneen muddooyinkii ugu dambeeyay laba doorasho ka horeeyay baa dhacay kan hadda Jubbaland nagu soo foodla markii laga reebo oo tan Puntland iyo tii Koonfur Galbeed tan kaalin intee leeg ayay ku yeelan doontaa baa isleedahay dawladda dhexe tan Jubbaland oo ay ka qaadanaysaa door intee leeg hanaanka doorasho ay u dhici doonto horta sida ugu habboon oo dawladda ku soo dhexgali karto waxaa weeyaan hal qodob weeye qodobkaas in ay free access ay u lahaato dawladda dhexe shaahid inay ka ahaato maamulka iyo qaabka iyo sida musharaxiintu ay u cabanayaan inay u taagnaadaan sida doorashadu u dhacaysa ku shubasho iyo kabootin midna mataqaanaa ayna dhicin oo ayagu shaahida u ahaadaan oo wixii daahfurnaan lagu sameeyo dawladda dhexe intaasi xaq u leedahay laakiin waxa kale oo dhan musharaxiinta waxay ka dhaxaysaa iyo maamulka jira bay ka dhaxaysaa waana xallisan karaan haddii markaa u qalloociyo dee dawladdii baa meesha joogta waxaa la dhihi haye guddigii baa lagu soo dacweynaya waxaa leeyahay waa kan soo ma arkaysid marka way sahlanaan kartaa taasaa horta yaa meesha taalla haddaad leedahay may gacanta ku wada dhigtana gacanta inay ku wada dhigto hawshoo dhan ma aha dawladda dhexe meeshan guddi baa la sameynayaa doorashada u taagan ammaan baa la sameynayaa waxaasoo dhanna waxay ka imaanayaan reer Jubbaland bay ka imaanayaan laakiin wax heshiis lagu yahay waa inay ahaadaan waxaas oo inaan ahaanin wax qof wato arrintaasaa horta yaa meesha taalla ama Puntland oo kale hadda markaad soo qaadanayso Puntland waxay leedahay isimo adag oo markii Cabdiwali uu yiri wasiir xataa ima soo gali kara sida asagoo meeshii mataqaana dictator ka waxaa la yiri hadduu rabo inuu soo galin laakiin kursigaaga aad fariisanaysaa baa la yiri maamulka ana haystay lama soo gali karo yiri dawladda dhexe xataa ka baqay ma ogta haddana waxaa lagu khasbay inuusan yani xaqiisa waxaan hayn uusan qaadan baa lagu khasbay markaasuu halkaa fariistay sugay kolkuu arkay natiijadiina dee wuu iska tagay ama halka kan ma jiraan waxa la yiraahdo odayaal ka adag hawsha ayada oo Axmed wax u sheegi kara waa hore ayuu dadkan oo dhan ku tuntay khadda ka saaray ma jiraan ismo mushaar qaata ma jiraan ismo laga warqabo ma jiraan ismo la xurmeeyo ma jiraan ismo maamulka inay wax ku leeyihiin u dhimanayo oo mataqaana la tusahayo ma ay jiraan waa ismo farta lagu fiiqayo oo la leeyahay nin hebel soo saar oo waxa hadaada samaysaasal oo farta lagu fiiqayo taasna dhibaatay waan gartay haddii aad tihiin siyaasiyiinta ama musharaxiinta hadda u tartamaya arrinta ma ka kulanteen oo kulan ma ka samayseen oo ma kala hadasheen in Axmed Madoobe habka uu wajahaya hadda Jubbaland doorashadeeda ma kala hadasheen oo talooyin ma ka siiseen arrinta ku saabsan horta waxa weeyaan maalin beher bay joogtaa maanta waxay waa bilow maanta bilow way waxay bilow ku tahay bal horta dadkii ahaa mataqaana baarlamaanka ahaa in la soo dhiso dhibaatada ugu weyn halkaas ay ka bilaabanaysa annaguna inaan inta shirno isaga nimaadna aan niraana waxaasaa khaldamay waa inaan meesha joognaa inaan meelaha ka qaylqaylino ma aha markaan meesha joogno ayaan waxaan leenahay kanuna khalad weeye kanuna waa sax markaas ayaan dhihi karnaa markaasaan shiri karnaa markaasaan wax isku raaci karnaa laakiin hadda dani walba kursi buu fadhiyaayo wax buu ka sheegay waxba hadda quman oo laga gaari karo iyo waxaan isaga imaan karna ma jiraan laakiin waan ognahay issue-ga wuxuu yahay oo marka aragti intee nagbad aragti midaysan aad ka leedihiin hanaanka hadda doorashooyinka ee Jubbaland habka ay u dhici doonaan iyo caqabadahan iman doona sidee aragti midaysan looga qaadan karaa oo maaragtay loo xalin karaa waa sidaan kuu sheegay horta waa inaan meesha isugu tagno waa inaan shirnaa waa inaan ogaanaa waxa khaldan iyo waxa saxda ah hadda ma ogidin miya hadda meel baad joogtaa exile markaa tahay oo banaanka aad taagan tahay oo magaaladiiba joogin oo wadankiiba joogin hadalkaagu qabasho ma leh hadalkaagu qabasho wuxuu leeyahay markaad meesha taaganto aad no iyo yes labadaba aad dhihi karto laakiin inta ka horeysa aad sida aad sheegtay aad meelaha ka hadlaysaan waa in gudaha aad gudaha tagna way aad iyo waayahay arrintan wasiir cali
markaynu fiirino safarka ra-iisul wasaaraha uu hadda ku joogo Jubbaland iyo arrimaha badan ay ka wada hadlayaan haddii bal ay dawladdu ay isku afgarato su'aal ahayd aan horey ku weydiiyo ahayd dawladdu hadday Axmed Madoobe ay sharaxdo oo ay tiraahdo wallahi ninkan wax loo dhaamo male ninku seed u aragtaan iyada oo maaragtay ay dawladdu ay tiraahdo waa in halkii laga sii wadaa okay waxa weeye Axmed Madoobe ha sii wado meeshaas dawladdu ma dhahayso laakiin wax baan ku ogolnahay dadka dhaaf way dhihi kartaa laakiin Axmed oo meeshii ku soo noqo ma dhihi kartaa tay tiraahdo ayadaaba ma taqaanay wax rogaysa oo halaynaysa bay la mid tahay waayo 7 sano oo boor iyo bus iyo ma taqaanay wax isdhaqaajiyay iyo xoreyn midna ayna jirin oo boor iyo bus la dhex taagan yahay ma 7 kala loogu daray waan gartay soo dadka laga manaxayo iyo umada meesha jooga waan gartay adigu hadda musharax madaxweynaha tahay yaa adiga in aad musharax noqoto cid ka dambayso oo gadaal ka riixaysa ma jirtaa ma noqoto dawladda ma noqoto dad kale ma jirto waan gartay anigu waa madax banaanahay waxaanan ku kalsoonahay inaan ma taqaanay Axmed Maxamed Islaan aan kursiga ka riixi karo oo dhihi karo oo dadku aniga iga jecel yihiin oo dhihi karo aad joog la dhihi karo oo dadku aniga iga dooranayaan Soomaaliyeed qofkii nafl oo reer Jubbaland oo dignity leh inuu aniga i dooranayo laakiin asaga una dooranaynin baan anigu ma taqaanaa ogahay waan gartay dawladda dhexe xiriir ma la sameysay inay kugu gacan siiyaan sida aad maaragtay niyo arinta ayada ma sababtu maxay yeelay dawladda dhexe hadayba lugta kula soo gasho xasarad baaba iska iimaanaysa Soomaaliya waagi dhaweeydo meeshan ay lugta gashadeen ma taqaanaa koonfur galbeed ayaa khaladaad waaweyn dhaceen marka dawladda dhexe waa dawladdanadii lacagna ugama baahna anigu taageero dadka war ninkan ugu shubal la yiraahdana ugama baahni waxay ugu kalifayay inaan dawladda dhexe hoos cararo oo nidhaahdo meesha la igu soo dhaweeyo maba jiraanba dadka halka joogana aniga iga jecel yihiin waan gartay dadka Jubbaland maxaad is leedahay waxbaad ka bedeli kartaa haday noqoto dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada maxaad wax badan aad ka qaban kartaa waa is leedahay wallahi maalin dhan inaad ii yeerto oo kaaga sheekeeyaa horta yaa fiicnaan lahayd balse hadda ku soo koobo Jubbaland ma ogtahay waa gobolka ugu qanisan gobolada Soomaaliya saddexdii goboleed ugu hodan sanaa weeye marka horumar badan baa ku jira waxa ku jira ma taqaanay beerihii baa magaciisa badii baa kan waxa oo dhan baa saana qof walba wuu sheegaa waana ogyahay laakiin anigu ability waxaan leeyahay aan horumar gaarsiiyo Jubbaland anoo isticmaalahay istiraatiijiyada aan wato taasoo marka ugu horeysa horta balqurba joogta inaan ku soo cesho meesha oo ugu horeysa inaan yani dadka kan hadda Soomaaliya markii la eego dhibaatada haysataa waxay tahay waan tuugsanayaa moogta oo dawladda shisheeyaan wax ka soo helayaa weeye anigu koob shaah dawladda kale u doonan maayo koob shaah uma dooran doono xataa federaalkana lacag ka ribin أنا إسكو فيلان Jubbaland intaan qabto oo yani isku dubarido yaan wax soo saarkooda wax uga dhigi karaa waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hadalhaynta toddobaadka oo aad ka daawanayseen telefishinka Som News TV oo maanta barnaamijka marti noogu ahaa musharax madaxweyne haddana musharax madaxweyne Jubbaland علي محمد حاشي هورينا وصل نقضي وزير كحيانك وزارة مالية جبلان آد أيام كوم هالعلم وما سنت هذه التلفزيون كاقسم تلفزيون أنا كآد بان كوم هالعلم هيا وأنا أنت أنا نوم أهان دونت مرر كلا إن شاء الله مركز صحفي فرد ديري خير بان كور رجينا